guddiga fulinta ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa magacaabay madaxweyne cusub oo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya uu yeelan doono kadib kulan ay isugu yimaadeen. warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamud Cumar uu is-casilay sabab la xiriira rabshadaha qasaaraha geystay ee ka dhacay magaalooyinka waaweyn sida Jigjiga iyo Diridhaba. guddiga fulinta ee dowlad deegaanka Soomaalida waxay u magacaabeen xilka madaxweynaha cusub ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Cabdi Maxamed ilka case oo ahaa wasiirkii biyaha ee Cabdi Maxamud Cumar. sidoo kale wuxuu soo noqday wasiirkii maaliyadda. cabdi wuxuu ka mid ahaa dadkii hore madaxweyne Cabdi Maxamud Cumar ugu eedeeyay inuusan waxba ka qaban dhibaatada loo geysanayo Soomaalida ku nool qaybo ka mid ah dhulka Itoobiya. dad badan oo siyaasadda la socda ayaa qaba in xiisadda ka jirta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay yareyn karto isbeddelkan cusub ee lagu sameeyay hoggaanka ugu sarreeya. wakaaladda wararka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ee Ethiopian Somali News Agency ayaa iyaduna baahisay inuu is-casilay madaxweyne Cabdi Maxamud Cumar. dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada Jigjiga ayaa sheegaya in ciidamo aad u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe ay gudaha u galeen magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya. sida ay baahisay idaacadda ku hadasha afka dowladda, wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa ku warantay in gelidda ciidamada ee magaalada ay ku timid codsi uga yimid maamulka Soomaalida ee Itoobiya. waxay sheegtay in ciidamadan ay si dhaqso ah u bilaabi doonaan howlgallo. ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Soomaalida oo ku saabsan ciidamadan cusub ee gudaha u galay Jigjiga. qalalaasaha dowlad deegaanka ka taagan ilaa hadda waxaa la sheegay inay ku dhinteen dad gaaraya 29 ruux. lama se oga arrintan waxay ka bedeli doonto. yuusuf cabdishire, wararka telefishinka SBC.